حبيبي يا رسول الله، يا سيدي يا أبا القاسم، الله بك الدنيا فعشت محمدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل لحظة وقد ماتت الأسماء إلا محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبابي في الله، كلنا كان قيمة بدن يوسفون ماني قفل باي قرتي سيوسو تجي وإظهارا لفرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنو موجرنا فرحتنا كفر أحسننا دلشوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأي حبيب كان إلهي بادورتي أرسا أنبياء وطن بان لغا دورتي وحان لغا ديكي وخير بناي مركز بان نغا نقن أمدي كو خير بناي أحد كان كشرفوا النبيان كفرحيني سوينا كفرحنا معه waxaa yeelay maalmaha qiyaamo markii la tago ummado oo dhan baa annaga hormarayno teena hormarayso. maxaa yeelay soo fadliga nabiga ma calayhi salaatu wasalaam asiga la-aantiisana adduunkanba lama imaadeen. waayo xabiibku ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala asoo nebi aadam la hadlay lowlaahu maa khalaqtuka, nebiga la-aantiis kumaana abuureen. nebi muusena waxaa lagu yidhi anta kaliimii wahuwa xabiibii, adiga waxaa la yidhi kaliimkayga waan kula hadlay laakiin asiga xabiibkayga waay. marka xabiibkaas aan isugu nimaanay oo maanta weyneynayno cid weynayso oo ixtiraamto annagu mugu horreyn ilaahay baa ugu horreeyey subxaanahu watacaala. ilaahay baa cid ammaanta ugu horreeyey. ilaahay baa qur-aankiisu ku ammaano wuxuu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim. nabi maxamedu adigu waxaa tahay mid dabeecad wanaagsan u saaxiib ah. dabeecaddaas wanaagsan baa ilaahay ku fadilay. axad ilaahay ammaana miyaan ammaan la gaari karnaa? waa may soo maa ammaantaas baa ilaahay sababtoo dheeriya waa maxay? nebigu wixii loo soo dirana waxay ahayd wuxuu yidhi xadiis saxiix ah innamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq, waxyaabaha wanaagsan inaan ummadda u dhammaystira baa laysoo diray. maadaama aan u ixtifaalayno xilligii siina la joogo waa inaanu ku dhaqanno sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. waa inaanu wax walbo nebiga raalli ka yaha aan sameyno. waa inaan diintiisii dadka gaarsiino. magaaladan aad joogtaan dad badan baa ku nool oon islaam ahayn, laakiin intii diinta loo sheegi lahay wax loo sharaxi lahay haddii laga horgeeyo waa cabiib, waa addoon, waa madow, masaas baa xal ku noqonaya. nebiga calayhi salaatu wasalaam masaas baa raalli ku noqonaya. dadkaan oo dhan ba annaga baa naloo soo diray. annaga baa ilaahay arradan khaliif uga ah in aan marka diinkiisii dadka gaarsiino oo dabeecad wanaagsan kula dhaqanno. soo sidaa maaha. laakiin in qofkii muslimkaa la isku dayay in diintii laga saaro, qofkii nebiga jecel